sheegtiyo isqoraansi baa yimi qaradaha adduunyada la isu qoonsay nabadi quwad la isu sheegtiyo isqoraansi baa yimi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal halkan waa idaacadda Star FM oo aad ka dhegeysataan FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta aalada satellite-ka baraha bulshada iyo live stream-ka ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka xogmaal oo habeen walba goorahan oo kale aad ka maqashaan Star FM marka laga reebo habeenada Khamiista iyo Jimcaha وأربعة تاريخنا waxay ku beegan tahay 26 bisha Febraayo sanadka 2020 qodobada xiisaha leh barnaamijka caawa aan idinku hayo waxa kamida wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya oo ka qayb galayay bandhigii ugu horeeyay ee gaadiidka ayaa ka hadlay dhismaha wadooyinka xiriiriya Muqdisho iyo labada gobol ee Shabeelle Jubbaland waxa ay mar kale ka shirtay ciidamada dawladdu ay geysay gobolka Gado iyo faragelin ay sheegeen in dawladdu ay ku hayso maamulkaasi madaxweynaha Puntland waxa uu balanqaad u sameeyay naafada deegaanada maamulkaasi wixii baahida ay tabayaan oo xaqqa tacliinta inay helaan iyo wixii daryeel ah ka gadaalna in maaragtay arrimahooda kaleeto oo ku saabsan tacliintooda iyo mustaqbalkooda wixii laga qaban karo ciidamo ka tirsan booliiska Galmudug ayaa maanta gadood ka sameeyay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud hal nabadeed ayaa laga gaaray xiisad u dhaxaysay beelo wada deegaano u dhaxeeya Galinsoor iyo Cadaado ee gobolkaasi Galguduud xiisad kalena waxa laga soo sheegayaa deegaano u dhaxeeya degmooyinka Cadaado iyo Caabudwaaq ee isla gobolkaasi Galguduud qodobada kale ee barnaamijka ku jira waxa kamid ah guuldarray u tahay dabaljada oo qaranka Soomaaliya midnimada Soomaaliya dalantaaleysa xanuun badan oo laga soo gudbay Soomaaliya mudooyinkii ugu dambeeyay waxa ku soo badanaya shirarka beelaha oo ku saleysan danaha iyo aayaha qabaa'ilka kuwaas oo lagu qabtay Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka waa falanqeynteena caawa maamulada Puntland iyo Somaliland waxa uu midka kale ku eedeeyay dagaal qasaare geystay oo ka dhacay deegaan hoostaga gobolka Sanaag ganacsatada magaalada Boosaaso waxa ay maanta ku dhawaaqeen inay shaqo joojin ay sameeyeen kadib markii wasaaradda maaliyadda Puntland ay canshuuro hor leh ay ku soo rogtay ganacsatadaasi wasiirka waxbarashada ee Kenya oo hortagay baarlamaanka dalkaasi waxa uu ka hadlay weerarada al-shabaab ay ku beegsadaan macallimiinta gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya waxaan codsanayaa in dhammaan xildhibaanada ka soo jeeda waqooyiga dalka ay aqoonsadaan qaar ka mid ah ardaydan oo la tababaro si loo geeyo iskuuladaasi booliiska Kenya waxa ay sheegeen in tirada iyo saraakiisha ugu badan ay geeyeen gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab ee ka geystaan gobolkaasi hay'adda lacagta adduunka ee IMF waxa ay sheegtay in 100 dal ay balan qaadeen lacago deynta looga cafinayo dalkan Soomaaliya gabagabada barnaamijkana waxaan idinku hayaa إنه قحط ولمينه
qiimaha midnimada haleeya intaan qarannimu saluugno qabyaalad ka dooran mayno qabiilna ma qaadi karo. kaalintaas suugaaneed aad maqasheen iyo sidoo kale qodobada aad hordhaca barnaamijka ku dhegaysateen oo faahfaahsan goordhow inaga fisha ha yeeshee waxaynu ku daafuranaynaa barnaamijkeena wararka dhacdooyinka iyo soomaalida wararka dhacdooyinka caalamka iyo soomaalida kuwa ugu waaweyn cabdixafiid nuur maxamuud ayaa inoo haya. mahadsanid Saddam Maxamed Daahir. wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sheegaya in halkaasi uu maanta dagaal ku dhex maray ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Somaliland. dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana warar ay soo kala saareen labada maamul oo mid kale ku eedeeyay inuu asagu lahaay mas'uuliyadda bilaabashada weerarka. madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa maanta ku eedeeyay Mareykanka inay dalkiisa ku baahiyaan cabsi la xiriirta cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha. coronavirus ayaa dalka Iiraan ku dilay 19 qof oo ka mid ah 139 qof ee uu saameeyay dalkaasi oo uu ku jiro wasiir ku-xigeenka caafimaadka taasi oo Iiraan ka dhigtay dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka corona ee ka dilaacay dalka Shiinaha. hadalka Ruuxaani ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo Iiraan ku eedeeyay inay caburinayso akhbaaraadka ku saabsan cudurka ka dilaacay dalkeeda. waxa uu sheegay inay qarinayso heerka rasmiga ee uu gaarsiisan yahay cudurkan. Iiraan ayaa tan iyo Arbacadii la tacaalaysay inay xakamayso cudurkan markaasi oo ay ku dhawaaqday labadii qof ee ugu horreeyay oo ku dhintay magaalada Qom oo xarun lagu barto diinta Islaamka isla markaana soo jiidata aqoon-yahano xajka u socda oo ka yimaada dibadda. mas'uuliyiinta ayaa xiray iskuulada jaamacadaha xarumaha dhaqanka iyo goobaha ciyaaraha waxaana shaqaalaha nadaafadda lagu daadgureeyay basaska tareennada iyadoo la geynayo goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan. tirada dhimashada rabshadaha diinta ku salaysan ee ka socda dalka Hindiya ayaa kor u dhaafay 21 ruux iyadoo booliska dalkaasi Hindiya lagu eedeeyay inay kor ka daawanayaan boobka lagu hayo muslimiinta ku dhaqan dalka Hindiya. caasimadda Hindiya ayaa talaadadii dab la qabadsiiyey masjid ay ku cibaadaysanayaan muslimiinta Hindiya iyadoo dhowr meelood oo ku yaala magaalada caasimadda oo ay degan yihiin muslimiinta dalkaasi laga soo wariyey rabshado kuwaas oo loo sababeeyey rabshadaha looga soo horjeedo sharciga cusub ee dalkaasi. muslimiintu waxa ay leeyihiin sharciga wax ka beddelka jinsiyadda wuxuu qayb ka yahay ajandayaasha ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi wuxuuna ka soo horjeedaa sharciga dalka u yaala. muuqaal fiidiyo oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dad kor u dhaafaya minaaradda sare ee masjidka waxaana halkaasi ka babanayay calanka xisbiga midigta fog ee dalkaasi. wasiirka biyaha ee dalka Itoobiya Saleeshi Bakeel ayaa sheegay in dalkiisa uusan ka qayb gali doonin wadahadallada cusub ee looga hadlayo muranka ka dhashay biyo-xiraanka ay Itoobiya ka dhisayso webiga Nile. Mareykanka ayaa martigeliyey wadahadallada u dhaxeeya Masar iyo Itoobiya kaas oo lagu waday inuu Khamiista berrito iyo Jimcaha ka dhaco magaalada Washington. haddii la dhammaystiro biyo-xireenka weyn ay Itoobiya ka dhisayso webiga Nile wuxuu noqonayaa biyo-xireenkii ugu weynaa Afrika ee laga dhaliyo korontada. waxaa arrintaasi ka dhashay khilaaf ka dhexeeya Masar, Itoobiya iyo Suudaan taasoo horseeday inuu Mareykanku u kala dabqaado. waxay saddexdan dal bishii la soo dhaafay gaareen heshiis horudhac ah oo ku aadan biyo-xireenka. ugu dambayntiina gudoomiyaha adeega macallimiinta dalka Kenya Nancy Makaria ayaa sheegtay in wixii ka dambeeyay sanadkii 2014 ay al-shabaab gobolka waqooyi bari Kenya ku dileen 42 macallin oo Kenyaan ah. Nancy Makaria ayaana sheegtay sababaha macallimiinta Kenya gaar ahaan kuwa aan muslimiinta ahayn looga saaray gobolka waqooyi bari inay tahay cabsida la xiriirta weerarada ay al-shabaab ku beegsanayaan macallimiinta oo korortay.
warkan ka soo baxay guddiga adeegga macallimiinta dalka kenya ayaa ku soo aadaya xilli siyaasiyiinta waqooyi bari kenya ay si adag uga hor yimaadeen tallaabooyinka macallimiinta looga saaray gobolkaasi al-shabaab ayaana weeraro joogto ah waxa ay ka fuliyaan gobolka waqooyi bari dalka kenya waxa ayna inta badan beegsadaan ciidamada kenya macallimiinta iyo sidoo kale shaqaalaha kale ee aan muslimka ahayn wararka dhacdooyinka caalamka iyo soomaalidana caawa waa naga intaasi aan dib idinkugu celiyo Sadaam Maxamed Daahir iyo Xogmaal ومahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyeen cabdixafiid nuur maxamuud oo inoo sheegayay wararka dhacdooyinka soomaalida iyo caalamka waxaad ka dhageysanaysaan star fm oo aad ka maqashaan fm-ka magaalooyinka aad joogtaan live streamka online-ka iyo baraha bulshada halkan waa star fm qaradaha adduunyada la isu qoonsay nabadi uwad la isu sheegtiyo isqoraansi baa yimi aan ku bilowno qodobka ugu horeeya barnaamijka Xogmaal maamulka Jubbaland waxa uu mar kale ka shiray ciidamada dawladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gado iyo fargelin ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay ku hayso maamulkaasi Jubbaland مسؤولين كترسن لبدا gole ee maamulka Jubbaland wax garad iyo siyaasiyiin ka qayb galay kulan looga hadlayay aayaha Jubbaland ayaa waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ku saabsan xaaladda Jubbaland kulankaas waxa ka qayb galay odayaal ka soo jeeda deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi Gado waxa ay warmurtiyeedkooda uga hadleen xaaladda Jubbaland iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ay geysay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi Gado waxa ay mar kale ku eedeeyeen dawladda federaalka in ay faragelin ku hayso maamulka Jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha ee Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Ducaale ayaa aqrinaya warmurtiyeedka ka soo baxay kulankaasi waxaan halkan ku soo gudbinaynaa war saxaafadeed shir degdeg ah oo iskugu yimaadeen mas'uuliyiinta labada gole siyaasiyiin xubno ka mid ah maamulada degmooyinka Doolow iyo Balad Xaawo ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan degmada Balad Xaawo waxaa looga hadlay xaaladda murugsan ee waqtigan ka taagan guud ahaan gobolka Gado gaar ahaan degmooyinka Luuq, Doolow, Balad Xaawo iyo Baardheere waxaan aad ugu xunnahay in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo meel iska dhigtay dastuurkii dalka iyo hanaankii federaalka Soomaaliya qaadatay ay wali sii wado khalkhalka siyaasadeed maamul iyo amni ee ay ka wado gobolka Gado laga soo bilaabo dhamaadkii sanadkii tagay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin isxigxiga oo baalmarsan dastuurka dalka kuwaas oo ay ku burburinayso hanaankii maamul ee hay'adihii dawliga ahaa ee ka howlgalayay degmooyinka gobolka Gado taasoo abuurtay xasilooni darro reebtayna saameyn adag oo xagga nolosha iyo amniga ee bulshada gobolka Gado xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay abuurtay jabhad cusub oo hoos tagta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed jabhadaas oo laga leeyahay dana siyaasadeed kuwaas oo awood ciidan ku farageliyay hanaankii maamul ee dowlad goboleedka Jubbaland dhamaadkii bishii Febraayo waxaa degmooyinka Luuq Doolow ay ka sameeyeen faragelin maamul oo baalmarsan sharciga waxayna awood ciidan ku bedeleen xubno ka mid ah maamulka sharciga ah ee ka jira degmooyinka Doolow iyo Luuq waxay qoraaladooda u isticmaalayaan loogada dowladda federaalka iyo shabada heer gobol ee dowlad goboleedka Jubbaland arrintaas oo calaamad u ah habjabhadeedka ay ku dhaqmayaan sidoo kale waxay si sharci darro ah ku garab istaageen iyagoo isticmaalaya awood ciidan xubno ka tirsanaan jiray maamuladii hore ee ay Jubbaland bedeshay shirku wuxuu walaac ka muujiyay xaaladaha bini'aadanimo ee ka dhashay khalkhalka siyaasadeed amni iyo maamul ee degmooyinka Balad Xaawo Doolow iyo Luuq waxaa barakacay qoysas ka badan 15,000 ilaa 20,000 oo qoys
qoysaska oo ay soo wajaheen dhibaatooyin ay ka mid yihiin biyo la'aan iyo cunto yari iyadoo lagu guda jiro xilli adag oo jiilaal ah. sii socoshada iyo howlihii gargaarka ee socday degmooyinkaas ayaa waxaa caqabad ku noqday ciidamada jabhadda. 23 bishii 2020 waxay ciidamada jabhadda garoonka degmada Doolow ku hor istaageen diyaarad samafal ah oo ay rabeen inay u isticmaalaan dana ciidan. diyaaraddaasi waxay garoonka ku xayirneed in muddo ah. dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka dhashay xayiraadii la saaray duulimaadyadii gobolka Gedo. dhibaatooyinka waxay ka mid ahaayeen dhimasho iyo daryeel la'aan ku timid bukaano fara badan oo tasiilaad caafimaad ka heli jiray caasimadda dalka. horjoogayaasha ciidanka jabhaddu waxay odayaasha dhaqanka degmooyinka ku qasbayaan in ay keenaan xoolo iyo tasiilaad ay u isticmaalaan nolosha ciidanka jabhadda. sidoo kale horjoogayaasha jabhaddu waxay handadaad joogto ah ku hayaan xubno ka mid ah saxaafadda iyo ururada bulshada rayidka, kuwaas oo qaar ka mid ah guryahooda ay ka carareen. waxaa nasiib darro ah aadna aan ugu xunnahay dhacdadii foosha xumeed ee 25 bishii labaad ka dhacday degmada Baardheere, taas oo argagixisada al-shabaab ay ku dileen 3 xubnood oo ka mid ahaa maamulka degmada Baardheere. ciidamadii sugi jiray amniga muwaadiniintaas waxay dawladdu u isticmaashay dana siyaasadeed. ciidamadaas oo amniga ka qaaday deegaano amni ah. shirku wuxuu tacsi tiiraanyada u dirayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qaraabadii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen mas'uuliyiintii xalay lagu laayay degmada Baardheere. siyaasado qarsooniyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu qaldaa si loo qaybiye Soomaaliyeed mid qura noqo. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar oo ka qayb galayay bandhigii ugu horeeyay ee gaadiid ee lagu qabto dalka ayaa waxa uu ka hadlay dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye iyo sidoo kale dhismaha lagu bilaabi doono wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxa uu wasiirka uu sheegay in dhawaan la soo gabagabeyn doono wadada dhismaheeda uu socdo, sidoo kale wadada kale ee Shabeellada Dhexe ee Muqdishona la bilaabi doono. waxa uu wasiirka uu ballan qaaday in la dhisi doono wadooyin badan oo ka mid ah caasimadda si ay u fududaato isku socodka gaadiidka magaalada Muqdisho. wasiir Omar oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri marka eventska sidan oo kale ah marka aan soo bandhigno baabuur cusub dad Soomaaliyeed ay u iibsanayaan inay ku socdaan iyo horumarinta gaadiidka iyo shirkadihii samayn lahaa gaadiidkaas oo service garayn lahaa oo qalab casri ah wato iyaga oo aan inta doonayn qalabka wadamada kale ee baabuurta lagu sameeyo casriga ah waddankeena wax badan ayay usoo jiidaysaa. sida aad la socotiin hadda halkaa ku arkay gabar Soomaaliyeed oo gaari wadato oo maraysa jid laamiga oo qurux badan. hadda labada jid ee la dhisay ee magaalada Jowhar ay ku xiri doonaan dowladda qaranka Afgooye, kuwaas way ka qurxanaan doonaan dowladda qaranka waa la dhammaystiri doonaa. jidadka magaalada gudaheeda aan sidoo kale waa dhammaystiri doonaa insha Allah tacaala deegaankiisa marka uu dhammaado. marka insha Allah tacaala ayaan rajaynaynaa jidadka isku xiri lahaa waddanka gudihiisa oo dhan iyagana dhismahooda waa la geli doonaa dowladda qaranka. كنت يا وفرحسن أنا سنة سنة أيوة هذا وضع كنا صوابه وأنا كنت سبدل كان أنا تقريبا أول كارسو دولة كريمة على يلا يا وضع سنة كريم سياسة قرصونيو قصلان قلبي قشرين بين بالغو خلدان سيلو غيبي صومالي dhegeystayaal haddii aad hadda inagu soo biirtay barnaamijka xogmaal ee raadiyaha Star FM ayaad dhegeysanaysaa. qodobo kale oo xiiso leh ayaa inoo soo socda. Puntland ayaa warar idinkaga haynaa, Galmudugna sidoo kale warar xiiso badan ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. Somaliland iyo Puntland oo is eedeynayana
barnaamijkeena qayb ayuu ka yahay markanse madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta waxa uu madaxtooyada maamulkaasi Puntland uu ku qaabilay gabar yar oo kamid ah dadka qaba baahiyaha aragga waxaana arintaas ay ka dambeysay kadib markii dhawaan gabadhaasi ay dhambaal tix ah ay hawada u soo marisay madaxweynaha maamulka Puntland kulan uu madaxweyne Dani kula qaatay xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi Puntland ayaan Xasan Ducaale oo 7 sano jir ah ayaa waxa uu madaxweyne Dani balanqaad u sameeyay naafada Puntland waxa uu sheegay in ay wax u qaban doonaan naafada Puntland ayna ka taageeri doonaan waxbarashada iyo nolosha waxa ugu weyn oo hadii uu baahi gaar qabo cid garab taagan inuu waayo ugu daran ya awoodda kala toode waxa Ilaahay waa qadaray oo wixii Ilaahay qadarnina horta kama horsaay karo laakiin sida dadka kale tooy iyagu danahooda u tashanayaan qofkan kale too markii la baahi gaar qaba wuxuu u baahan yahay cid maarta ag taagan bulshadaana mar walba iyada isku tashata dawladnimaduna waa dadka oo dantooda oo ka qabsada dad gaar oo yaala ma jirto marka aadan u mahad celinaya runtii dareenka degdega ah oo ganacsatada iyo dhammaan dadku ay maalmihii dhawad ay qaateen ka xukuumad ahaanna insha Allah awalba dawladda iyaga aasaas u ahaa inaan taa ka sii wada shaqeyno sidii loo hirgelin lahaa wixii baahida ay tabayaan oo xagga tacliinta inay helaan iyo wixii daryeel ah ka gadaalna in maaragtay arrimahooda kaleeto oo ku saabsan tacliintooda iyo mustaqbalkooda wixii laga qaban karo inaan ka qabanno aadaan runtii ugu rajo weynahay arrintaasna si fiican baan wax uga qaban doonaa haddii Ilaahayna ka dhigo wixii karaankeenna oo dhan waa istaagi doonaa haddii ahaan caafimaadkooda iyo haddii ahaan tacliintooda dabcan maalintii dhawaato dareenka dadka oo dhan aad u hadlaysay laakiin hadda wixii tabar ah unba hadba la dhaqaajin doonaa haddii Ilaahayna ka dhigo dabcan haddaba waxa isku dayaa jira kooban Puntland oo dadka indhaha la garo waxba ka jira kuwa dhagaha la iskuulaad baa jira laakiin sidii la rabay ma wada aha oo waan dadka lagu soo jeedin waxaan inta in ka badan waa la qaban karay marka dareenkiina aadan uga mahadnaqeynaa haddii Ilaahay idmo annagana waajibkeena intii karaankeena un baan gudan doonaa anagoo iswada kaashanayna haddii Ilaahay idmo ayaan iyo cunuga yar oo kaleeto oo dabcan haddii noqoto wax dad waxa jira dhalasho oo waxba laga qaban karin iyaga cadeyn doona haddii ay tahay wax laga gaari karaan intii karaan ah inay hesho marka insha Allah khayr baan rajeynaya hadda quraanka ma dhigataa ya quraanka isagu inta soo farto laakiin far ma jirtay waxaan ka wadaa inay xafido insha Allah de kulli materialkii iskuulkii inaan hawlgalno sida ugu dhaqsaha badan hadii Ilaahay ka dhigo marka taasna insha Allah wixii karaankeenna aan qaadanayna hadii Ilaahay ka dhigo waana wax badan inaan ka qabanaa rajeynaya hadii Ilaahay dhinacaas akhyaarta looga mahad celinaya runtii dadaalka xawana runtii dareenkaaga aad lagaaga mahad celinaya wax fiican baad dadka tustay waajibkoodii baad dareensiisay marka munaasabad ku habboonna waa ahayd oo runtii warar badanaa wax laga hadlaa laakiin meeshaas waxay ahayd meel ku habboon in dareenka laga celiyo Saciid Cabdullaahi Dani ayuu kaasi ahaa madaxweynaha maamulka Puntland oo maanta xarunta madaxtooyada Puntland ku qaabilay gabar 7 sano jir ah oo kamid ah dadka qaba baahiyaha aragga قنكان إسراعيني قراني ما وحيتاي قنكان إسراعيني قراني ما وحيتاي قيمة هذا لوميا عدو باقب صداو قبوكم النستان
ciidamo ka tirsan booliiska galmudug ayaa maanta gadood ka sameeyey degmada caabud waaq ee gobolka galguduud ciidamadaas gadood ka sameeyey oo la wareegay qaar ka mid ah xarumaha degmada caabud waaq waxa ay ka cabanayaan mushaar la'aan soo wajahday muddooyinkii u dambeysay ciidamadan oo ka tirsan booliiska galmudug waxa ay sheegeen in 8 bilood ee lasoo dhaafay aysan qaarkood mushaar helin wariye saciid cabdi maxamed oo caabud waaq ku sugan ayaan telefoonka kula xiriiray si aan wax badan uga ogaano xaaladda caabud waaq aad baan umahadsantahay adiga dhammaan bahda star fm oo salaamaya marka ku xiga ciidamo ka tirsan kuwa booliiska degmada caabud waaq ee ka howlgala degmada ayaa maanta sameeyey gudood kuwaasi oo intooda badan ka cabanaya mushaar la'aan ay sheegeen in muddo haysatay ciidamadan waxay ka tirsan yihiin ciidamada booliiska degmada caabud waaq ee la diiwaan geliyey sanadkii 2019 haatan aanu kasoo gudubnay ka qaybaha ciidamadii ay dowladdu qarameynaysay waqtiga ay socdeen ciidamada deegaanada dowlad goboleedka galmudug ee dowladdu ay qarameynaysay muddo ay sheegeen in sanad ahaa baa la diiwaan geliyey haatan laga joogo waxay sheegeen in muddada sanadka 2 bilood keliya ay mushaar ka qaateen intii kalena hadda la sheegayay in bisha ku xigta mushaarkooda ay heli doonaan saa darteed markii ay mushaarkooda waayeen maanta waxay sameeyeen gudood waxay xireen saldhiggii booliiska degmada caabud waaq oo shaqadii ka socotay oo dabcan ay gudood ka sameeyeen ciidamadu sidoo kale maanta meelaha ay tageen shaqo joojinta ay ku sameeyeen oo maanta aan shaqaynay waxaa ka mid ah maxkamadda madaniga ee degmada caabud waaq oo shaqadii ka socotay iyadana ay joojiyeen albaabada iskugu dhufteen marka ciidamadan inta badan waxay ka caawinayaan mushaar la'aan keliya maahan caabud waaqa sidoo kale ciidamo ka tirsan isla kuwan booliiska iyo kuwo kale ka howlgala deegaano dhaco isla waqooyi gobolka galguud ayaa muddooyinka dambe waxay ka caawinayaan mushaar la'aan ay sheegeen inay muddo haysatay marka inta badan godoodkan ciidamadu ay maanta sameeyeen waxay ahayn kuwo ku saabsan dhinaca helitaanka xuquuqdooda ciidamada dowladda federaalka iyo maamulka ku lahaayeen waayahay gadoodka kadib maxaa xigay oo maamulkii degmada iyo taliska ciidanku ay qaadeen oo tallaabo ah si gadoodkan loo soo afjaro mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada caabud waaq oo guddoonka degmada ugu horeeya odayaal dhaqan oo ka mid ah golaha guurtiga degmada caabud waaq iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada degmada caabud waaq kuwada waxgaradka waxay galeen arrintan ka dhalatay mushaar la'aanta ciidamadu ay ka cabanayaan ee shaqo joojinta saldhigga iyo maxkamadana sababtay sidoo xal looga gaari lahaa waxay la kulmeen ciidamadii iyo saraakiisha hogaaminaysay oo ay kala hadlaan sidii shaqadan loo hayay bulshada aysan saameyn ugu yeelan mushaarka laga jartay ama mushaarkooda aysan helin waxay sheegeen inay kala hadli doonaan mas-uuliyiintii ka sarreysay maamulka degmada maamulka galmudug iyo sidoo kale saraakiisha dowladda federaalka arrinta ay kala hadlayaan arrintaana waxaa lagu jiraa xalkeeda sidoo go-aan looga gaari lahaa welina ma jiro wax war oo kasoo baxay maamulka degmada iyo xubnihii kale la kulmay ciidamadan gadoodsan ee ku saabsan xalka gaaridda arrintan ka dhalatay mushaar la'aanta ciidamadu ay ka cabanayeen ee maanta shaqa joojinta ka sameeyey degmada caabud waaq marka arrintan weli wax go-aan iyo wax xalal lagama gaarin waxaana la filayaa in go-aan dhawaan laga soo isla wararka galguduud haddii aan ku sii soconno xal nabadeed ayaa laga gaaray xiisad in muddo ah u dhexaysay beelo wada dega deegaano hoostaga galinsoor iyo cadaado ee gobolka galguduud xiisadaas waxa ay salka ku haysay isqabqabsi dhuldaaqsimeed iyo ceelal laga qoday halkaasi xiisad kalena waxaa laga soo sheegayaa deegaan u dhexeeya cadaado iyo caabud waaq ee isla gobolka galguduud wararkii ugu dambeeyey ee xiisadahaas waxaa inooga waramay wariyeena saadaq cabdi axmed oo cadaado ku sugan تمام waad mahadsan tahay saraakiil ka socota booliiska gobolka iyo kan galmudug saraakiil sidoo kale ka socota militariga soomaaliya qaybtooda 21aad ciidamada niso sidoo kale saraakiil ka socda maamulada degmooyinka galinsoor iyo cadaado iyo sidoo kale odayaal dhaqan ayaa maanta isugu tegay deegaan duleedka ka ah degmada galinsoor gobolka galguduud gubasho halkaas maanta laiskugu tegay waxay daba joogtay ama ay qayb ka ahayd 3 bilood ee lasoo dhaafay ama in ka badanba arrin dhexdhexaadina oo dadka deegaankaasi u dhexaysay arrintaasi ayaa ahayd dadka deegaanka oo intooda badan hadda kusii guuraaya ay isku haysteen dhuldaaqsimeedka iyo sidoo kale barkadaha laga qodayo deegaanadaasi marka xiisadan oo taagneed dhowrkii sano ee lasoo dhaafay deegaanka ka taagneed ayaa xal u helideeda waxaa guda galay saraakiil u horeeyo waa saraakiil ka socota booliiska kan gobolka kan guud ee galmudug iyo sidoo kale taliyayaasha saldhigyada booliiska galinsoor iyo sidoo kale cadaado
xal eelideeda ayay ku guda jireen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay maanta gobol in muuqatay tii ugu dambeysay inay tahay ayaa loo fadhiistay labada dhinac ayaa lashor keenay inkastoo natiijadii kama dambaysta weli aan laga gaarin haddana qodobo dhowr ayaa lagu soo hadal qaaday oo xal hordhaca laga gaaray ballamo kale ayaa jiray oo toddobaadka dambe dabcan loo sii ballamay oo ah in xal ugu dambaysta laga gaaro dadka deegaanadaasi barkadaha ka qodaya go-aamada maanta laga gaaray haddii aan wax un ka xuso waxaa ka mid ahaa in dhammaan la faray dhinacyada inaysan jiri doonin hadda wixii ka dambeeya in barkada laga qodo deegaankaasi sidoo kalena saraakiisha iyo maamulada degmooyinku ay go-aansadeen labada dhinac ee halkaas wadadaga waxay u arkaan inay si sharci darraa ku dhisan yihiin gebi ahaanba la burburiyo waa go-aamada maanta kasoo baxay gudashiihaad waxaa sidoo kale sidaa xusaba jira sheer kale oo loo ballamay toddobaadka soo socda oo iyaguna qayb kasii noqonaya dhamaystirka arrimahan ishaysiga dhinaca muranka deegaanka gobolkan sadaamo haddaan dib ku xasuusiyo waxa uu u muuqdaa nin nolosha caadiga ah ay la mid noqotay isqabqabsiga dhinaca dhulalka ee dadka reer guuraaga ah dhanka kale saadaq maxaynu ka ognahay wararka inaga soo gaaraya caabud waaq iyo cadaado deegaano u dhexeeya oo laga soo warinayo xiisada dagaal sadaam waad mahadsan tahay dabcan bilowgii sanadkan xiisada deegaankaasi iyo sanadkii tegay dabayaaqadiisaba way jirtay dhowr jeer ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya qaybteeda 12 ayaa ku baxay sidii xal loogu heli lahaa beriisuma ayay ka samaysteen deegaankaasi inta ciidamadu ay joogeen ma jira shaqaaqooyin iyo wax ka jiray oo caqabadaha balse ciidamadu waxaa la sheegay bishaan aan ku gudi jirna bartimeedii inay ka tageen deegaanka xiisada ayaa dib uga soo cusboonaatay xiisadan waxa ay dalka ku haysaa sadaamo haddii aan ku xasuusiyo barkadiisi ama deegaanka oo guryo laga dhisay oo dadku ay barkada ka dhisanayaan waa xiisada arrimo noocaasa dalka ku haysta maanta wararkaan helayna waxay sheegayaan arrinta ay soo cusboonaatay oo deegaankii barkada horle laga qodayo sida wararkaaynu ku helayna saraakiil ka tirsan qaybta 12 ayaa mar kale ku baxday deegaankaasi oo iyagu aaday sidii xal looga gaari lahaa dhiig walaalkii kii quba qooma mau dambayse dhiig walaalkii kii quba qooma mau dambayse midnimada quweeyo xornimada qadariyo haddii aad hadda inagu soo biirtay waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka xogmaale raadiyaha Star FM qodobo kale oo xiiso lehna waa ay inoo soo socdaan Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku soo badanaya shirarka beelaha ku salaysan ee lagu qabanayo magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka shirarkaas waxay beelaha uga hadlayeen aayahooda iyo doorka uga aadan arrimaha siyaasadda ee dalka shirkii ugu dambeeyay Muqdisho ayaa lagu qabtay mid kalena waxaa horey loogu qabtay Hobyo waxaana arrimahaas ila falanqeeyay oo falanqeynta caawa barnaamijkayga la qayb galaya Maxamed Xaadir Nuure oo kamid ah aqoonyahanada ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka ee dalka ugu horreyn waxaan weydiiyay aragtidiisa ku aadan shirarkaasi bismillah ma santa walaal adiga dhegeystayaasha radio Star FM waa salaamaya waxaa u malaysaa arrintan inay ku soo aadayso runtii waqti dowladda Soomaaliya ay u harsan tahay hal sano waayada dambana waa run waxaa jiray shirar daba jooga oo qabaa'ilada Soomaalida qaarkoodna ay hore maamulada iyo system ugu samaysteen kuwana hadda maalmihii ugu dambeeyay ay yeelanayeen magaalada Muqdishona aad loogu dareemayay kulamada ku salaysan hannaanka qabiliga inkastoo dowladda Soomaaliya ay ku dhisan tahay nidaam qabiliya haddana waxyaalo ku cusub ay ahayd in yani laftirkeeda qabiilada shiraya dareen laga muujiyo waxyaalaha laga maaragtay laga filan kara ama loo malin karana waxay tahay yani dhowr qodobkood in qabaa'ilada qaarkood ay ayagu u arkaan in siyaasad ahaan nidaamka maanta jiray oo aad maaragtay u gacan bidixeeyey yani waxyaalo badan oo xuquuq ay u lahaayeen ama ay xaq u lahaayeen ay qaarkood ay sida laga dareemi karo ay waayeen qabaa'ilada qaarna waxay u muuqdaan kuwa difaacanaya yani kursi ama position ama yani heerka ay maanta ama nidaamka markaa jira
qaabab badanoo marka waxaa jira iswan oo aan runtii kala saarnayn waana nasiib darro dalka soomaaliya oo markaan lugaha la gelayo waxaan ognahay soomaaliya waayadii dambe waxay ka gudbaysay hanaanka ku dhisan qabiliga waxaa jiray ururo iyo isbahaysiyo ayaa laisku dooranayay laakiin hadda waxaa muuqda xitaa in dadka ay kala guranayaan mas-uuliyaddaas iyo systemkaasna waxyaalaha xoojiya waxaa ka mid a dowladdan februaayo 2017 lagu doortay muqdisho waxay dadka soomaalida qaar badan oo ka tirsan oo dowladda ama madaxda faamili ahaan isxigaan ay u arkeen in dowladdu ay ayagu ay tahay sadaan ku taageeray in nidaam ama system habqabilii lagu taageerana wuxuu burburiyey ama meesha ka saaraya kalsoonidii shacabka soomaaliya isku qabeen iyo in qofka lagu taageero yani ama systemka sidii u wanaajiyey ama looga soo horjeesa hadduu qalday laakiin waxaa hadda muuqata waxa weeyaan system lagu taageerayo ama madax lagu taageerayo hanaan qabali ah waayahay marka arrintan saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa qorshihii la rabay in dalka looga saaro nidaamka qabaa'ilka ee la doonaya in loogu gudbo nidaamka xisbiyada badan dabcan dowladda soomaaliya waxaa xaqiiqa oo shaki ku jira dadka soomaaliya inay kala degsan yihiin yani bilowgii dowladdan farmaajo hogaamiyo waxyaalaha la soo qabsato waxaa ka mid ah yani in ummadda soomaaliyeed oo loo baahnaa in laisku keeno laisku soo dhaweeyo laga shaqeeyo maaragtay masaalixdooda oday loo noqdo la qanciyo maaragtay laga saaro wax kastoo tuhun ama shaki keenaya ama waxyaalaha xoojinaya yani khilaafaadkii qabiliga soo dhex maray intaasoo dhan waxaa malaysaa in la laalay madaxweynaha gadaal iskaga tuuray dagaallo siyaasiya iyo kuwa afkaariga uu la galay soomaalida inta kaleeto oo maamulkiisa diidaneed waxaad og tahay maamul goboleedyadii qaar badan oo ka tirsan cagtu mariyey qaar badanna hadda ayuu weerar ku yahay waxyaalaha kaleo meesha ku jira waxa weeyaan in yani siyaasiyiin ka aragti duwan in weeraro uu ku sameeyey oo dhibaato u geysta dhimasho iyo dhaawacyo qaarkoodna la xayiray oo culeysyo lagu keenay waxyaalahaasoo is urursanaya marka waxay dhalisay in yani madaxweynuhu uusan u soconin nidaam iyo soomaalinimo iyo ummadda isku keenisteeda in dhibaato cusub iyo waxyaale laga soo gudbay uu raacdeynayo taas marka waxay meesha ka saartay wax kastoo isku keenisa iyo midow iyo in soomaalida ay ka gudubto nidaamkii quranka ee qabiliga ahaa mar haddii dowladdii lagu eedeynaya in nidaamka qabiliga laga guuray duqoobay ayada ay soo nooleynayso rabto inay shaar u geliso dad gooniyana target ama bartilmaameed ugu dhigtana suuragalnimada way adagtaha in yani laga saaro nidaamkii qaybsiga qabiilka ama soomaalida u gudubta hanaan axzaab ah wayna adag tahay suuragal lama marka waxyaalahaasa keenaya ayaa u malaynaya ama u badinaya beelahan hadda sida goonigoonida ah ee u shiraya ee ka shiraya danaha aayahooda maxay ka tari karaan horumarkii dalka ka soconayay iyo qorshihii la rabay in dalka looga saaro nidaamka qabaliga waxyaalo badan ay ka tarayaan mar haddii qabiilkii soomaalidu waxaad og tahay dowladdii gacaanka markay dhacday soomaalidu waxaa malaysaa in hanaan qabiliya laisku taabtay dowladdii markii maxamed shaad bare waddanka ka baxday waxaa isqabtay qabaa'iladii soomaalida qabiilba qabiilka kaleeto ayuu dagaal la galay qolo walbana qolada kale shaki ka muujisay 2000 carta markii laiskugu tegana waxbaa lasoo bilaabay inkastoo qabaa'ilada qaarkood ay qolo kastoo meesha fuuleyso ama kursiga qabata ee qolada kale shaki ka muujinaysay cabdullahi yuusuf baa xigay shariif baa xigay xasan shniif baa xigay aragtidaada maxay kula tahay in looga gudbi karo nidaamka qabiilka ee loogu gudbi karo nidaam axsaab badan oo bulshada oo dhan si siman ay wax u qaybsan karaan dabcan way fududahay cidda keliya oo markaas suuro gelin karta waa cidda markaa kursiga qabata waxaa ogtahay rwanda dhibaatadii ka dhacday madaxweynaha markuu tirada qabtay Paul Kagame waxaa la socotaa halka la kala maray sida wax laiskugu duway iyo sida dadka loo geliyay kalsooni ay wax ku wada dhistaan madowgii iyo cadaankii South Africa Nelson Mandela markuu kursiga qabsaday sida uu ugu gudbay yani nidaamkii cunsuriyadda ku dhisnaa waxaa keliya horta hirgelin kara nidaamka qabiliga ku dhisan ama shakiga qabiil ama dareenka عقدة قبيلة الاسكوفة ماشي كسارك وعدة مركز كرسي guulaysto ilaahay marka niyo ama gacanta u geliyo ayagaas
diyaarin karo istaraatiijiyad kalsooni lagu abuuri karo oo dadka Soomaaliyeed ay isku aamini karaan haddii madaxda aysan taa samayninna way adag tahay marka in shaqsi siyaasi ama oday dhaqameed ama qof banaanka ka jooga inuu nidaamka asaga sameeyo mana samayn karo sabab uu ku sameeyo ma jirto awoodda marka guud waxaa iska leh madaxweynaha markaa dalka qabta isaga loo baahan yahay inuu dadka isku jijiido inuu masaalix la yimaado inuu dadka boobihii hore oo xanuujiyo uusan dib u faahfaarin kulamadan beelaha ay yeelanayaan ma waxaad ku aragtaa horumar mise dib u dhac dalka gadaal loogu celinayo guuldarray u tahay dabarjabay u tahay qaranka Soomaaliya midnimada Soomaaliya ka dhantaaleysa xanuun badan oo laga soo gudbay iyo waxyaalo badan oo laga caafimaado unbay dib noogu celinaysaa marka wax fiicanna ma ahan waxaan rajeynayaa laftirkooda inay gartaan in maanta in la kala tago la isjiido ama dagaal iyo dhiig horseedo inay wax xal aysan ku jirin wax walbana xalka masaalixda laga fiiriyo qolada madaxtooyada haysatana laftirkooda mas-uuliyad guuda ka saaran inay ilaahay ugu cabsadaan inaysan dalkan mugdi taariikh mugdiga gelin in yacni wax xumaato ah oo qarniyo jira aan lagu soo xasuusan marka wax fiican maaha shir qabiiliga waqtigan dhacaya oo laga leeyahay ujeedada laga leeyahay ognahay siyaasado qarsoon iyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu qaldaa si loo qaybiye Soomaaliyeed mid qura noqo ganacsatada magaalada Boosaaso waxa ay maanta ku dhawaaqeen inay shaqo joojin sameeyeen waxay wasaaradda maaliyadda ee Puntland ku eedeeyeen inay ku soo rogtay canshuuro hor leh taasoo keentay in ay gadoodaan iyagoona tilmaamay in hoos u dhac uu ku yimid ganacsiga magaalada Boosaaso qaar ka mid ah ganacsatada oo warbaahinta la hadlay ayaa sidaas hadalkooda u dhigay canshuurtana la ku soo rogay waxa weeye canshuurtu saddex nooc bay u kala baxdaa canshuur waxa weeye sales tax oo alba waan la ka qaadi jiray canshuurna waxa weeye canshuurta la yiraahdo canshuurta biriga la yiraahdo canshuurna waa canshuurta la yiraahdo dekadaha la yiraahdo midda haddana la ku soo rogay waa canshuurtii dekadaha weeye oo la ku kordhiyay oo boqolkiiba wax konton ka badan la saaray weeye canshuurtii biriga oo baalka loo oran jiray canshuurtii birigana waxa oo wasaare canshuurtii birigana waxa loo rogayaa baa la yiri bisha kowdeeda dekadaha la ka qaadayaa baa la yiri iyadoo oo dhamela oo boqolkiiba 20 sida ay nagu yiraahdeen qolada wasaaraddu ay nagu yiraahdeen boqolkiiba 20 baan idinkaga soo rogaynaa dekada waa sida odaygu sheegay waxa weeyaan cashuurahana lagu soo rogay oo aanan awoodeedii lahayn oo waxa weeyaan dhaqaalaha iyaga ee dhaqaalaha suuqa ama magaalada ganacsiga Boosaaso aad hoos ugu dhacay sanadii u dambeeyay oo sanad walba hoos u dhac uu nagu sii dhacay dhaqaale dawladuna ay sanad walba cashuuro nagu kordhinaysay suuqa maanta aynu joogno boqolkiiba 25 baa ka baxay suuqa oo sanadkii hore maanta maalinteedii furnaa boqolkiiba 25 dukaan baa ka baxay oo dukaamadii xidhan yihiin ama waxa weeyaan dad kale oo cusub yimaadeen inta badanna waxa weeyaan 5 sano ka hor ama 6 sano ka hor lama heli jirin dukaan aad kireysatid maantana waxa weeyaan albaabada xidhan iyo albaabada furan ee lagu shaqeeyo isleegiin waxaana sababay dhaqaale xumada saameysay magaala ganacsigii Boosaaso waa sida wadaygu idin sheegay cashuurta bariga oo wasaaradda ganacsiga bisha kowdeeda oo halkii 200 iyo wax laga qaadi jiray ilaa maanta 600 sii socota boqolkiiba 20 iyo wax ka badan sida wadaygu sheegay hal mar soo booday cashuura bariga cashuurta dekada oo 5 sano u dambeysay dhamaan la wada ogyahay inta jeer kor u kacday waxay sababtay in aanu la tartami kari weyno magaalada ganacsiga magaalada xeebeedkii ama magaalada ganacsiga ee dekada Boosaaso aan la tartami kari weyno alaabii ka soo degay dekada Berbera iyo dekada Xamar ay naga jabnaadeen oo annagu waxa weeyaan aanu u safarno inaanu Berbera u safarno iyo Xamar ayay sababtay waxaana waxa soo dhan waxa sabab ah cashuurta halka nagu dhacaysa yaani madaxweynaha iyo xukuumaddu waa og yihiin maanta heerka noloshu maanta ka marayso Boosaaso ama Puntland guud ahaan albaabkiisa waana ka xiray albaabada hadaan kadib wax ka dooranay waana ka soo xiray dekadiina waxa weeye waxaana la ku soo rogay canshuur dhabala tii iyada ahaydna waxaana la kaga dhigay markii aan qoladii Cabdiwali ay naga canshuurtaasan ka cabanay 25 bay dhan iska bixiyay bisha oo sanadkii ah nimankan Cabdiwali ee qoladan madaxweyne Dani iyo tiimkiisu iyo wasiirkiisa maaliyadda Xasan Shiraab gal waxaana la kaga dhigay $5 waxaana la kaga dhigay $8 oo ala bil joogto ah oo saarka markii la sanadka lagu dhufto yaani boqolkiiba waa dareemi kartaa inta markii lagu dhufto waxay noqotay boqolkiiba 600 bay dhaaftay lacagtaas hadadkeeda magciisa bay dhaaftay
يعني waxa sii taagna hadda yimid in maanta marka la alaabtii dekada lagu canshuurayay boqolkiiba waxa la canshuuraya qaybkeed 200 de waxa weeye waxaad moodaa madaxdu inaysan arkaynin dhibaatada waddanka ka jirta iyo meesha la marayo iyo nolosha meesha marayso isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko isqoonsiga dhexdeena iska dhaafa khaladko wasiirka waxbarashada ee dalka Kenya waxa uu maanta hortagay baarlamaanka dalkaasi waxa uu ka hadlay weerarada al-shabaab ay ku beegsadaan macallimiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya iyo sababaha ay macallimiinta Kenyaanka ah looga saaray gobolka waqooyi bari waxa uu sheegay in wax dooraysan wasaaraddiisa ku lahayn sababaha macallimiinta looga saaray halkaas balse ay arintaasi lahaayeen guddiga macallimiinta waa guddiga madax bannaan ee macallimiinta dalka Kenya George Magaha wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa baarlamaanka dalka Kenya sidaas ka hor sheegay laga soo bilaabo sanadkii 2015 ilaa iyo sanadkii 2019 guud ahaan gobolka waqooyi bari oona dhan 24,058 arday loo tababaro macallinnimo. In Garissa, for example, between 2015 tusaale ahaan ismaamulka Garissa intii u dhaxaysay sanadkii 2015 ilaa iyo sanadkii 2019 waxaa jiray arday dhan 9,427 kuwaas oo helay bundada C-Plane. Ismaamulka Wajeer intii u dhaxaysay sanadkii 2015 ilaa iyo sanadkii 2019 waxaa bundada C-Plane helay arday dhan 6,940 iyo ugu dambeyn ismaamulka Mandera intii u dhaxaysay sanadkii 2015 ilaa iyo 2019 waxaa jiray arday dhan 7,690 arday oo helay bundada C-Plane taas oo markii la isku daro dhan 24,058 arday waxaana codsanayaa in dhammaan xildhibaanada ka soo jeeda waqooyiga dalka ay aqoonsadaan qaar ka mid ah ardaydan oo la tababaro si loo geeyo iskuuladaasi dhankiisa abaanduulaha booliiska ee dalkaasi Kenya Halira Mutaya ayaa isagana hortagay baarlamaanka dalka Kenya waxa uu ka hadlay amni darrada ka jirta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxa uu abaanduuluhu sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen xasilinta iyo sugidda amniga gobolka waqooyi bari waxa uu carabka ku dhuftay in saraakiishii ugu badneed ay geeyeen gobolkaas ciidamo hor leena ay iminka halkaasi u daabulayaan sida aan u nahay booliska qaranka waxaan mar kale ku celinaynaa gudoomiye gobolkan waa kan kaliya oo ay joogaan saraakiisha ugu badan ee amniga tirada saraakiisha booliska ee gobolkan waa mid aad u badan si loo yeereeyo hanjabaada haddana aan leenahay ama aynu joogno waxaa jirto dad saraakiil aad u badan oo tababar loo soo xiray kuwaas oo aan siinayno khibrad ku filan si aan u geyno kuwa dheeraad ah gobolka waqooyi bari muddo 2 bilood gudahooda waxaanu gobolka waqooyi bari geyn doonaa saraakiil amni oo dheeraad ah within a period of 2 months I will be having additional deployment in northeastern siyasado qarsooniyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu qaldaa dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka xogmaal ayaan isla soo gaarnay qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka ayaan soo qabanaynaa hay-adda lacagta adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano IMF waxa ay sheegtay in 100 dal oo xubin ka ah hay-addaas ay ballan qaadeen in ay bixinayaan lacag dhan 334 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxay lacagtaas uga qayb qaadanayaan qorshaha la doonayo in deenta looga cafiyo Soomaaliya ballanqaadkan ayaa ugu ogolaanaya Soomaaliya inay hesho lacag cusub oo dalka lagu caawinayo Soomaaliya oo lagu leeyahay deen gaaraysa 5.3 bilyan ayaa waxaa deentan looga qafiifinayaa barnaamij gaar ah oo lagu kaalmeynayo dalalka ugu saboolsan dunida siyasado qarsooniyo qosolaan qalbiga jirin been baa lagu qaldaa si loo qaybiye Soomaaliya mid qura noqo guud
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka xogmaal oo qodobo kala gedisan aad ku soo maqasheen waa tabintii iyo soo saaristii Sadaam Maxamed Daahir farsamadii Maxamed Abuukar Cabdixafiid Nuur Maxamuud ayaa inoo akhriyay wararka Soomaalida iyo caalamka intaynu barnaamijkan kiisa xiga ku kulmi doono waa dhammaantiin idin nabadgelyo waxaana idinkaga tagaynaa kaalintan sugaaneed ee soo socota inagu qaxardooni mayno qiimaha midnimada haleeya intaan qarannimu saluugno qabyaalad ka dooran mayno qabiilna ma qaadi karo inagu qaxardooni mayno qiimaha midnimada haleeya intaan qarannimu saluugno qabyaalad ka dooran mayno qabiilna ma qaadi karo ajirku ilibku ku yaal haddana qof runaa ma jiro qiyaasta waxaa la mida in reernima qaatayo midnimo ay tahay qadhaay ajirku ilibku ku yaal haddana qof runaa ma jiro qiyaasta waxaa la mida in reernima qaatayo midnimo ay tahay qadhaay qarniyaal cudurka ay bulshadu qayrkeeday oga hadhiyo qoysqoysiso weerarkii qofkii dibu raadino qandhadu ku kooban keli qofkii dibu raadino qandhadu ku kooban keli qarniyaal cudurkahay bulshadu qayrkeeday oga hadhiyo qoysqoysiso weerarkii qofkii dibu raadino qandhadu ku kooban keli qofkii dibu raadino qandhadu ku kooban keli hawaniina cawra tahay ummaati baa loo yahay qiyaasta waxaa ka dhigan in reernimo qaybo quursada isu duubni qaran hawaniina cawra tahay ummaati baa loo yahay qiyaasta waxaa ka dhigan in reernimo qaybo quursada isku duubni qaran dunidan qarada hormaray khayrkeen aan haybsanno kala qaybsanee bulshoy qalbi mida noqdo isqadariya dhammaantiin dunidan qarada hormaray khayrkeen aan haybsanno kala qaybsanee bulshoy qalbi mida noqdo isqadariya dhammaantiin qofku kada waa loo helaa haddayna ku dhisa goyn waxaan qaylahay bulsho qabiilkii aamine qalbiga xaqiraadu taal qofku kada waa loo helaa haddayna ku dhisa goyn
قوليسي وديرا ديرالي عدو قندراستيو شغلكي أبودي وكا قرنكي فهمي قفكي دمنو لهودي قوليسي وديرا ديرالي عدو قندراستيو شغلكي أبودي وكا قرنكي